السلام عليكم daawadayaasha kanaalka ogaalow marka hore waxaan idinkaga raali gelinayaa maalmo aad ku faraha badan ee aan ka maqnaa kanaalka oo aan waxba soo dhigin waxayna midaa ku dhacday sababo jira awgeed Allah ayaa mahadnaq dhamaanteed ay u sugnaatay oo maanta saamaxay inaan idin soo gudbiyo muuqaalkan aan horey u galno ku soo dhawaada mowduuceena maanta Spain waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda Yurub waana dal xubin ka ah midowga Yurub oo dhacda koonfur galbeed qaaradda Yurub bariga iyo koonfurta waxa deris kala badda cad ee dhexe waqooyigana waxa xuduud kala leh Faransiiska Andorra iyo Gambiyadka Feski waa dalka labaad ee ugu dhulka weyn qaaradda Yurubta galbeed Spain magaca rasmi ee loo yaqaan waa boqortooyada Spain waa dhulkii loo yaqaanay Andalus ee ay muslimiintu 800 sano ay joogeen magaca Andalus wili masuulin ee ilaa hadda qaybo ka mid ah Spain gaar ahaan qaybaha koonfureed ee Spain waxaa loo yaqaanaa Andalusia magaalooyin badan oo Spain ku yaalo asalkood ayaa waxaa dhisay muslimiintii Andalus waxaana ka mid ah dhismaha ilaa ay maanta jiro ee loo yaqaano qasriga Al-Hamra ee ku yaal magaalada Granada waxaa dhisay Al-Malik Abdullah bin Muhammad Al-Ahmar qasriga Al-Hamra sanadkii waxaa soo booqata malaayiin qof darbiga qasriga Al-Hamra waxaa ku xidhan aayado Quraan iyo axaadiis iyo kelmado Carabi ah haddii aan u soo laaban mowduuceena caasimada wadanku waa Madrid waana magaalada ugu weyn dalkaasi waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 3.2 milyan oo qof magaalada labaad ee ugu weyn waa Barcelona waana caasimada gobolka Catalonia magaalada Barcelona oo magaceeda si kala gedisan loogu dhawaaqo waxaa caan bixiyay kooxda magaaladaas ka dhisan ee Barcelona waxaana ku nool kala bar dad ku nool magaalada Madrid waana 1.6 milyan oo ruux wadanka Spain ayaa waxaa la aaminsan yahay in markiisii ugu horeysay la degay muddo 35 sano ka hor luqadda saxda ah ee lagu hadlo dalkaasi waa Isbaanishka waana luqad ay maanta ku hadlaan dad lagu qiyaasay nus bilyan waana 500 milyan oo ruux waana luqad inta badan dadka koonfurta Amerika ay ku hadlaan asalka luqadaasi iyo faafinteeda waxaa iska leh Spain tirada dadka Spain waxaa lagu qiyaasaa 47,000 oo ruux lacagta laga isticmaalo dalkaasi waa euro dadka ku nool Spain diintooda boqolkiiba 69 waa Catholicism boqolkiiba 27 waa dad aan diin lahayn tirada soo hartayna waa dad diimo kala haysta Spain waxay ka mid tahay wadamada horumaray dhaqaalaheedna waa kan sagaalaad ee ugu weyn caalamka marka la fiiriyo wax soo saarka aad ayuu u sareeyaa heerka koritaanka qiimaha dadka Spain waxay ku jirtaa kaalinta 20aad Spain waa dal warshado leh oo alaab badan caalamka u suuq geyso waa wadanka saddexaad ee ugu maalgashiga badan caalamka daraasad la sameeyay sanadii 2014 ayaa waxaa lagu ogaaday in heerka shaqo la'aantu ay tahay 7%, balse 10 sano ka hor waxaa lagu qiyaasay heerka shaqo la'aanta 20%, sida ku xusan daraasad uu sameeyay Bankiga Adduunka. waxaa dalkaasi aad loogu xiiseeyaa ciyaarta loo yaqaano dabile ciyaarka waana ciyaarka dalkaas si weyn loogu xiiseeyo waxa ayna tahay shuruudo ku xiran in uu dibiga jiro ugu yaraan 6 sano